xaflad ballaaran oo lagu xusay sanad guuradii 151aad ee ka soo wareegtay aasaaska ururada Bisha Cas iyo laanqeyrta cas ee adduunka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta sare ururka Bisha Cas maamulka gobolka mas'uuliyiinta caafimaadka iyo marti sharaf badan ayaa lagu qabtay xarunta ururka Bisha Cas ee magaalada Burco sidoo kale waxay xafladan shahaadooyin lagu guddoonsiiyay 220 arday oo ka qalin jabiyay barashada gargaarka degdega kombiyuutarka iyo luqadda Ingiriisiga gudoomiyaha Bisha Cas ee gobolka Togdheer Cabdi Caawil Jaamac oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda loo qabtay xafladan taasoo maanta xafladan inoo soo qabtay maanta oo ay munaasabadu tahay laba arrimood saaran mar waxa weeye 8 May waa maalintii la aasaasay ururada Bisha Cas iyo laanqeyraha cas ee adduunka iyo maanta oo ayna ay tahay in 220 arday oo عليك رسالة قاتي قار إنجليزي قاتي قار قاتي درس إنك قار قاتي روح فرصي يا بعين تاسو سكوبا إلى الله ويا ما ترى أيها ميش أمات على صوم دينا وأنا من حرت أنت أقبل على صوم لكن أنت قبل أنا هاي تسيء وأمثلي gudoomiyaha guud ee ururka Bisha Cas ee Soomaaliland Axmed Cabdi Bakaal ayaa sheegay in ururka Bisha Cas uu taagan yahay wax u qabashada bulshada sanad walba aan ku dagaayay maalinta xuska laanqeyrta sanadkan aan ku dagaayay waxa weeyaan isku tiirsanaanta dadku inuu iscaawiyo ama xooga uu samayn karo dad isku taga ama qofka la isku taga ama community la isku taga waxay ku bilaabeen caawinaya dad dagaal meel ka dhacay oo wadaan gargaar degdeg ah marka hadda jeer ku degay waxa weeyaan in la caawiyo qofka baahan warasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii Bisha Cas laanqeyrta iyo Bisha Cas ee wada socda aasaaskooda taariikhdooda iyo waxa ay garan waxay gudaha ka sheekeeyeen gudoomiyaha hay'adaasi gacanta nala jooga aan hambalyo kuleeyahay dhammaanba hay'adaas wixii Soomaaliland jooga marka aan ku hambalyeeyaa ururada Bisha Cas ee laanqeyrta cas ee caalamiga maalinta la aasaasay iyo dhalinyarada soo qalin jabisay Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.